sidaan la socono insaanka waxaa ka dhaca qaladaad aad u tiro badan waxaana xilligii rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam maka uu furtay waxaa jiray nin saxaabi ahaa laakiin oo xilligaasi aan saxaabi ahayn kolkii uu rasuulka soo galay magaalada Makka ee barakaysan markii uu rasuulka alle soo galay Makka wuxuu markiiba u soo dhaqaaqay dhanka Kacbada xilligaasi Kacbada albaabkeedii waa ay xirnayd waxaana furaha albaabka gacanta ku hayay nin la oran jiray Cusmaan ibn Talha xilligaasi muslim ma ahayn markii uu arkay muslimiintii oo soo galay Makka wuxuu xiray Kacbada albaabkeedii wuxuuna dusha ka fuulay halka sare ee Kacbada markii uu rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam uu soo galay Makka dadkii mushrikiintii badankoodii waxa ay soo galayeen islaamka wuxuuna durbaba rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam weydiistay furaha Kacbada dadkiina waxay u sheegeen in furaha uu hayo nin la yiraahdo Cusmaan ibn Talha oo markaasi saarnaa xagga sare ee Kacbada Ali bin Abi Talib Allah karaali naqday ayaa ku yiri Cusmaanow furaha Kacbada inasi waxa halkan taagan rasuulka alle ee Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu Cusmaan yiri Muhammad haddaan u aaminsanahay inuu yahay rasuulka alle waxaan u furi lahaa albaabka xilli hore taasi oo macnaheedu tahay maba aaminsani Muhammad inuu yahay nabi alle mana furayo Kacbada markaasuu Ali bin Abi Talib u dhaqaaqay inuu ka soo qaado Cusmaan ibn Talha furaha si xoog ah markaasuu Ali furay Kacbada markaasuu rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam galay Kacbada oo ku dukaday 2 rakacadood oo salaad ah markii ay dhacdadaasi dhacaysay waxaa joogay halkaasi nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa Abbaas ibn Abdul Muttalib wuxuu Abbaas ku yiri rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam rasuulka alle waxaad ogtahay in reerkeena dadka xujayda ah ay ka waraabiyaan biyaha xilliga xajka oo cidda hooshaasi qaabilsan inaynu nahay annaga sidaas darteed waxaan ku weydiisanayaa inaad furaha Kacbada inagu soo wareejiso si aan labada mas'uuliyad ee waraabinta xujayda iyo furaha Kacbada inaga u hayno markuu sidaas yiri waxa rasuulka alle si degdeg ah Kacbada isagoo ku jira ugu yimid Jibriil waxaana Kacbada gudaheedii ku soo degay aayadan inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا xaqiiqdii alla weyne wuxuu idin amrayaa inaad u celisaan amaanooyinka kuwa iyaga iska leh iyo inaad marka aad kala xukumaysaan dadka dhexdooda aad ku kala xukuntaan cadaalad dhab ahaantii muxuu wax wanaagsan yahay darsin uu isaga alla weyne idin siiyo run ahaantii alla waa maqal badane oo arag badan aayadda oo macnaheedu ahaa rasuulka alle u celi furaha Kacbada Cusmaan ibn Talha rasuulka alle markiiba wuxuu Ali amray in furaha uu celiyo Cusmaan ibn Talha oo uu ka raali geliyo sida uu la dhaqmay haday Ali wuxuu u yimid Cusmaan ibn Talha oo ku yiri Cusmaanow hoo furahaagii oo aan haday si xoog ah kaaga qaaday naga raali noqo sida aan kula dhaqannay Cusmaan ibn Talha waa uu yaabay markaasuu ku yiri Aliyow goor dhaweyd waxaad xoog iga qaaday furahani adigoo si xoog ah ila dhaqmaya haddana madaxaagii hoos ayuu u raaracaa yacni waad murugaysan tahay waa maxay ujeedka noocaani oo kale ah Ali wuxuu yiri markaas wallaahi Cusmaanow wuxuu alla weyne adiga kugu soo dejiyay quraan furahan dartiis isagoo alla weyne leh inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha الله سبحانه وتعالى وحو أمر رسول كيس محمد صلى الله عليه وسلم إنه إلى شو أمانة ونعل شو عدي أمانة هيسي معناها وإن الأذيق فرها كوسو علينا أيو الله وين أمريا عثمان مركز وحو أها قال إسلام مركب عثمان وحو يري إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله haddaba ma ogtahay wixii dhacay kolkaasi Jibriil alayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulkii alle ku soo laabtay isagoo faraya markaasi awaamir inkastoo markaani aysan ahayn awaamirta mid waxyi ah laakiin oo ahayd mid rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam lagu amrayo inuu arintaasi fuliyo
wuxuu jibriil yidhi muxamedow sala allahu calayhi wasalam istaag oo ugu bishaaray cusmaan ibnu dalxa in furaha kacbada ay gacanta ugu jiri doonto qoyskiisa iyo faraca isaga ka farcami doona ilaa iyo dhammaadka dunida wallaahi sida jibriil uu amray ayay xaaladda ilaa iyo maanta tahay faraca reer cusmaan ibnu dalxa ayaa furaha kacbada haya qoyska ninka furaha haya waxaa maanta ilaaliya boolis si gaar ah u tababaran taasina waxay ku timid awoodda alla weyne uu siiyey faraca saxaabiga cusmaan ibnu dalxa bal ka waran cadaaladda diinteenna macaan saa wuxuu leeyahay adeerkiisa rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam cabbaas furaha ii dhiib aan inagu hayne waxaase taasi ka diiday alla weyne oo ku yidhi maya u celiya furaha cusmaan ibnu dalxa cusmaanna wuxuu ahaa nin gaal ah allow adigay cadaaladda dhan kuu sugan tahay allow cadaaladda inoo soo celi maantana nin walba reerkiisa ayuu wax u dhiibanayaa waana astaantii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku sheegay in ay soo dhowdahay qiyaamaha maxaa yeelay xilka waxaa loo dhiibay qof aan aqoonteedii iyo ammaanadeedii aan sugi karin yaa allaah allow ummadda waa ummaddaaday u naxariiso jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casriga online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 waalid waxaan ku hayaa bushaaro qaaliya haddii aad awlaad leedahay isla markaana Allah kugu arsaaqay oo doonaysa inta yaryar yihiin inaad Allah ku xidho oo barto barashada diinteena islaamka waxaan ku hayaa dugsi ay wax ka dhigaan macallimiin ka haqabtiraya in awlaadaada diinta islaamka ku barbaariyaan haddii ay qurbaa ku nool yihiin muddo aad u kooban ku xifdisiiya xifdinta quraanka kariimka barahigaada afka carabida bara asaasiyaadka diiniga ay ka mid tahay kow ka noqda ardayda ugu horeeya iska diiwaangeliya dugsiga Nuurul Huda Qur'aan Online oo bishan qaadanaya arday kooban wixii faahfaahin waxaad ka weydiinaysaa taleefanada shaashada kaaga muuqda ballanteena waa dugsiga Nuurul Huda Qur'aan Online ku soo dhawaada walaalayaal markaska Daarubirri Qur'aan Online waa markas lagu baran doono qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo culuumtiisaba kaasoo hab online ku baxaya isla markaana ay dhigayaan macallimiin aqoon u leh barista xifdiga quraanka kariimka haddaba casharada faraha badan ee lagu barto dugsigan online-ka ah ee lagu talagalay inay ka faa'iidaystaan ubadka qurbaha ku nool ayaa waxa ka mid ah in muddo aad u kooban lagu barayo barashada xifdiga quraanka kariimka iyadoo la raacayo manhaj lagu talagalay duruusta kale dugsigan lagu barto waxa ka mid ah barashada higaada carabiga oo asaasi u ah quraanka markasku wuxuu ugu bishaaraynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha inuu si wanaagsan oo tayo sare leh uu u bari doono culuumta la xidhiidha quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala